guraynaa waa biyo roobka oo fadhiya marka insha Allah waajibaadkayga aan gudanaynaa wax kale oo xilligan aan la soconayno kala ma lahan insha Allah wax sidoo duquu sheegay waxaan rabnaa inaan dadka shacabka u sheegno markay biyo yar roob yardo oo biyo meel fariistaan inaan dhooba iyo dhagaxaan iyo lagu rogin oo qof walba is oran gurigaaga hortiisa qallajiyo intuu loor ciida dhigo kadibna ay dhibaato kale aysan keenin marka insha Allah waxaan rajaynayaa raxmadda Ilaahay annaga ka shaqaynayno oo gurayno inaan biyo gaban haddaan nahay dawladda hoose marka insha Allah inaan nagala shaqaysaan baan rajaynaynaa waa dadaal la rabo in lagu fuliyo waajibaadka dawladda hoose degmadu leedahay waa la fiirsan waayey magaalada oo biyihii ku kala xiran yihiin oo ganacsigii iyo dadkii socodkiisa iyo wixiiba ujeedku kaas weeye haddeer saacaddan aan u shaqaynaynaa sidii duqa iyo xoogayuhuba sheegeen waxaan ku darayaa shaqada la qabanaya waxay u baahan tahay ilaalin waxaa jira dad ku xadgudbaya shaqada gaadiidka iyo tuubooyinka isku xiran ilaa meel fog ayay waxay isku xiran yihiin ilaa 100 mitir iyo ka badan baa tuubooyinku isku xiran yihiin marka intaas waxaa ku jira waddooyin gaadiidku marayaan waa laga xanibayaa intaa shaqadu maaragtay ay ka socoto oo tuubooyinka biyaha ay saarayaan ama gaadiidka ku dallacayaan ama godadkii loogu talagalay ay ku shubayaan dadka marka qaar baan ictiraamayn shaqadii oo maaragtay wax magarataa ku jidha gaadiidka wadata ku tumanaya tuubooyinka waxaanu kala dardaarmaynaa inay tixgeliyaan meesha shaqada laga hayo runtii halkan waxaa ka socota shaqo aad iyo aad u qurux badan oo saaka soo bilaabatay ilaa saaka iyo caawa inta ka dhexlana waa la shaqaynaya waad aragtaan xildhibaanadii duqii xogayihii iyo dhammaan inaan loo kala harin hawshan waa u jeedaan waa xilligan loo soo gaarsiiyeyna salaaddii waxaa weeye dadka ganacsatada inay helaan meel ay ku ganacsadaan gaadiidku helo meel uu maro dadku waxa weeye ay helaan qaab ay u shaqaystaan runtii intaasaa laga taxadarayey waana aragtaan sida loo shaqaynayo hadda waxaan rabnaa haddii allayno inaannu sii wadno haddii allayno caawo ilaa caawa hawshaan awadno aanan ka seexan si subaxii waxa weeye dadku ay u helaan meel ay maraan iyo waxa weeye qofkii khudaar soo gadanaya ama soo adeeg doonanaya iyo kii waxa weeye asaga wax gadanayaba meeshuu mari lahaa baan rabnaa hadda inaannu bannayno oo ilaa saaka aan wadin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay wuxuu noo keenay raxmaddiisii aan muddo baryaynay ilaa waa kuu mahaddaa gaalkacay maanta waa roobsatay roob fiican baan helnay haddana roobka nimco walba nuqsaanteeda leedahay biyo yarkaa ee dhulka naga fadhiistay waa annaga ka shaqaynayna xilliga habeenka ah waxaan saacaddan uga shaqaynaynaa waa marka aan isnire shaqadana waa sii wadaynaa intii tabartaya meel kasta waxaan jecelnahay inaan biyaha ka dhurno ka jiidno ka saarno meeshii biyoboolile biyobooliga u juhayno meeshii kanaalle kanaalka aan ku ridno meeshii aan waxba lahaynna aan boodad uga jiidno sida haddeertaanba inay muuqata waxaan rabnaa inaan shacabka gaalkacyo ka codsanno in ay nala shaqeeyaan aysan xirxirin meelaha biyuhu marayaan shacabku waxaan ka rajaynaynaa inay la shaqeeyaan dawladda hoose inay la shaqeeyaan waacda fayadhowrka inay la shaqeeyaan xildhibaanada inay la shaqeeyaan ciidamada inay la shaqeeyaan meel kasta ciddii u timaaddo oo rabta inay ayaga u qabato shaqadooda oo biyahaas ay ka saadho aysan caqabad ku noqon